بسم الله الرحمن الرحيم maanta duleedka magaalada Muqdisho agagaarka Siinka waxa ciidamada amniga ku guuleysteen in gaari walxaha buuxa qaraxa laga soo buuxiyay loogu talagalay in ummadda Soomaaliyeed lagu baabi'iyo lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo tani waxay ka timid kow markii muxuu ahaa ciidamada amnigu ee baryahan xasilinta magaalada Muqdisho ka wadeen dhammaan meel walba oo baabuurta la baarayna la adkeeyay waxa dhacday in muxuu ahaa cadawgu isku dayay inuu wixii qarxay dibadaha ka keeno soo geliyo tiina markii la adkeeyay muddo 12 casho ah ayay ciidanku daba socdeen oo ay baabuurkaas ku raad joogeen kadibna lagu guuleystay maanta in muxuu ahaa markii ay ogaadeen in la daba joogo gaarigii la soo qabtay sidoo kale gaari kale isna waxa jira siin ku qarxay maalmo ka hor isagana muddo ayaa lagu raad joogay maanta waxay maraysaa in ciidanka iyo shacabka oo iskaashanaya ay muxuu ahaa ka hortagaan dhibaato fara badan oo shacabkan loo geysan lahaa waxaan aad uga mahadcelinaynaa ciidanka howlgalka iyo xasilinta caasimadda oo runtii adkeeyay amniga shacabka Soomaaliyeedna siiyay fursad ay nolol maalmeedkooda ku adeegtaan sidoo kale waxa mahad leh shacabka Soomaaliyeed oo in muddo la shaqeynay ciidanka oo la'aantood aysan suurtagal noqoteen in guulahan iyo horumarkaas daba joog ah la gaaro aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ciidanka geesiyaasha ah oo runtii qaraxaas isaga sidaad ka aragtaanba waa mid loogu talagalay in boqolaal qof lagu laayo runtii meesha ay marayso waa meeshaas mana loo dul qaadan karo ciidankana howlgalkoodii iyo muxuu ahaa sirdoonkoodii iyo dabagalka inta waa wadayaan waxaana jira dad fara badan oo lagu daba joogo shacabkana dhawaan waxaan u soo bandhigi doonaa dadkaas iyaga ah